الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. waxaan hore uga hadalnay inay jiraan niman soo saaray wargeydkaas oo lagu hadlayo in diinta islaamka la baabi'iyo. sida oo kale 22 bisha 12 waa habeenkii Jimcaha 1991 waxaa laga dhageystay idaacadda Yuhuudda oo loo yaqaano BBC waraysi lala yeeshay nin gaal ah oo Kirishtaan ah. waraysigu wuxuu u dhacay sida soo socota. warku waa war aad u xun. marka dhageysta ninka xukunkiisa oo mantiin doona haddii Rabbi qadaro subxaanahu wa tacaala. wariyaha idaacadda Yuhuuddu wuxuu ku yidhi gaalka ka socda qolada Kirishtaanka magacaaga maxaa la yidhaah. wuxuu sheegtay in bulxan la yidhaahdo iyo magac noocaas u eg. wariyaha idaacadda Yuhuuddu wuxuu ku yidhi xaggeed ku dhalatay. wuxuu sheegtay gaalku inuu ku dhashay waqooyi galbeed. wariyaha idaacadda Yuhuuddu wuxuu yidhi waqtigee baa tagtay dalka Yuhuudda iyo meelaha aad joogtid oo aad waxyaalaha qaar ka sheegaysid oo ka soo baxday 1987 ilaa 1988. sidaas ayuu sheegay. waxaa sheegay saas ninkii gaalka ahaa. wariyaha idaacadda Yuhuuddu wuxuu ku yidhi markuu sidaa ku yidhi hadda ma waxaad haysataa diinteed haysataa. wuxuu ku yidhi gaalkii masiixiyadda ayaan haystaa. wariyaha idaacadda Yuhuuddu hadalkaas ayuu ninka sii weydiiyo wuxuu ku yidhi xisbiga aad hogaaminaysa ujeeddadiisu waa maxay. xisbigaas oo ah Kiristiyaan waa xisbi Kiristiyaana oo ka jira Somaliland. wuxuu ugu jawaabay waxaan doonaynaa inaan ka qayb galno doorashada iyo dawladda laga dhisayo Somaliland inaan ka qayb galno ayaan doonayaa. sidaas ayuu yidhi ninka ka socda qolada gaalada ah. wariyaha idaacadda Yuhuudda warka ayuu ku soo celiyey. wuxuuna markaa weydiiyey imise ayay la eg tahay inta aad haysataan kalsooni iyo dad. gaalku wuxuu yidhi Somaliland dadka u dhashay qoyskii 2 nin ayaan ku leenahay. markaan ugu liidanaha 1 nin ayaanu leenahay. sidaas ayuu gaalku ku jawaabay. waxaana u fiirsan hadalka uu ninka gaalka odhanayo. wuxuu ninka asagaa ku yidhi oo ma waxay haysataan kalsooni badan. haa buu yidhi maxaa yeelay markaan ugu yarana qoyskii waa 1 ama waa 2 qofood. sidaas ayuu u sheegay. bal waxaa jira 350 carruur gaaraysa oo lagu tababaro dalka Yuhuudda lana baro diinta Yuhuudda. idaacadda Yuhuudda wariyaheedu wuxuu yidhi oo ilmahaasu diintay haystaan ma diinta Yuhuudda. gaalkii wuxuu yidhi haa diinta Yuhuudda ayay haystaan. wuxuuna markaa sheegay gaalku in ilmaha la soo qaaday 1987 ilaa 1988 oo halkaa la geeyey waddanka Yuhuudda. gaalku wuxuu yidhi carruurtaa waxaa gacanta ku hayla gabar Soomaaliyeed oo loo yaqaano Luul ayaa gacanta ku haysa oo maamusha taradiyadooda iyo waxooda. waxaana si dhaba loo bari doonaa diinta Yuhuudda dibna waa loo celi doonaa. Somaliland waxay noo diideen buu yidhi inay naga qaybgeliyaan dawladda. gaalka ayaa sidaas sheegay markii hore laakiin hadda waa naloo ogol yahay. saasaa meesha ka muuqanaysa. waa naloo ogol yahay. Somaliland waxay nagu dhaheen dawlad diin baan ku xakumi doonaa. sidaas ayaana halkaa ka soo caddaatay. wax badan bay yidhaahdeen Somaliland waan goosanaynaa waqooyiga. danta lalahayna Yuhuudda ayaa loo goynay ayay ahayd. waa soo caddaatay. warar badan baana soo bixi raba. gobollo badan ayaan maqalnay in Yuhuudda loo goyn rabo iyo qolo kale. waxaan halkaa ka soo caddaatay Somaliland inay arrintaas ku jirta meesha. waxaa ninka isaga uu sheegay oo gaalka ah markuu arrintaa ka warramayey magacyadiina miyaad bedegteen ayuu yidhi wariyihii idaacadda Yuhuuddu. wuxuu ku yidhi haa magacyo xunxun oonan sheegi karin magacooda ayuu sheegay. ninka isaga ah wuxuu yidhi oo wariyaha idaacadda Yuhuuddu xibna miyaad ka tihiin dawladda Somaliland wax ma ka tihiin. wuxuu yidhi gaalku haa weliba golaha wasiirada iyo baarlamanka ayaan dad badan ku leenahay. wa ficlan siday u hadlayeen waa uu egyahay warkaasu. Somaliland sidaas ayaa jirta. aynan doonaynaa inaanu ku yeelanno saldhig iyo meel hagaagsan ayay yidhaahdeen waqooyiga Hargeysa oo kale. sida oo kale waxaa la ii sheegay inay jiraan 20 nin oo aad isugu xihan oo ka shaqaynaya ayaguna inay wax noocaas oo kalaa sameeyaan. dad badanna gacanta ku haya oo ku dhashay Galgaduud gobolka loo yaqaan say ayaguna sheegteen. meeshaa waxaa idinkaga soo baxay waxyaa badan ama ka hurda ama hurdada ka kaca. shacab Soomaaliyeed 100% muslim baanu nahay. 100% diinaanu ku dhalanay. maxamed iyo cali baana la yidhaah. Luul baa hogaamin. Somaliland hal la gaarsiiyo in sidaa loo dan leeyahay
وحكى الله شيء إن أي جيران ضد بدن أو إنجليز كجوجا أو سومالي لاند أسعدا أو أيوة أساس وكلا أسعدا وحن كلا أجمع إلى جيران ضد بدن أو أقوى هن اللي شيء أو كإيمان يعني أستراليا خير كوحير أو جوكسي مرايكنكا أو أساس على سوماليا جريه قبل الله اللي حي سومالي لاند دولة اللي هم العوام كلا شيء حكى الله شيء إلى جيران تراكيل بدن وكسر دقيقة تبارك والله أبو ترجع إلى جيب بدن جيستان وحكى الله شيء إلى جيران ضد أيوة النوع سكرا وإيمان ربا وفرصة أيوة وكبد الله بالربا ميت إيمان ربا بلدك بروحه وملي يعني غير هذا بلد حاول أجهزة وحنا الله قلت لك شيء إلا الله ينمن بدن أو علماء وهل كجوجا قبل كجوجا أبدا تراكيل بناك كسر عطايا أنا كنت رجعت waxay kaloo cadeeyeen inay jiraan 50 nin oo ugu tababartay ninkii hore dibka badnaa inay la dagaalamaan 100 qofood oo 50 ku doonaya inay dalka ku laabtaan si wadaadada wax looga qabto markii arrintu waa sidaa ama indhaha ka laabta ama ka laaban iniga garanaysaan ragaas oo tababar ku maqnaa qaarkood markii hore qaarna ay mardama baxeen marka dadka noocaas waa dad gaala ah oo aan ilaahay agtiisa waxba u oolin yani marka mas'uuliyadda meesha taala waa maxay Soomaalida waxay tiraahdaa habartii calaan dhashay ceelkiiba waa laga xumaayaan calolxumo ku dilin oo aan dib ku soo gaarin adiga soo garanaysid marka yani ummadan ayada inay balaaya ku dhacay walaadadooduna ceelkiiba caga xumaayeen waxba weyla ayeen odayaashooduna garshaandi halka u fadhiyaan oo qaad bay cunayaan intoodii oo yani lagu sheegay inay wax barteen xagga maadigana waa intaa ay u jeedeen in la qaybsado gaban la yuhuud noqdeen gaban la ay buudiyo noqdeen gaban la ay meel kale ka imaanayaan xaaladda sidaa weeye allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi markuu nooga sheekeynaya ahlu kitaabka dadka lagu sheegayo لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ويقالوا بين ذكي الله ومسيح إن مريم أها ذكي الله كل شيء ويقالوا بين وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله سبحانه وتعالى هي المسيح وحو كويري والله عابده يا ما أوسند الأنيق عابده dadka masiix oo daba socda oo nooca oranaya waa gaalo aan ilaahay agtiisa waxba u olin sida oo kale waxa ka dhacday magaalada tan aanu ku noolnahay niman islaam isku sheegaya inay istaageen ayagoo ka hadlaya Christmaska oo yiraahdeen xoolaha Christmaska loo qalo waa la cuni karaa oo ku meteleen bisha mawlidka xoolaha la qalayo waana mawlidkii Maxamed oo kale ka rumaysan yahay tahay Christmaska xun ayay yiraahdeen sida dad waaweyn oo aqoon yahano iyo culimo lagu sheegaya ku hadlay waxa noocaasa ayaanu nadex joogo islaam aanu saa ku nahay anu saa ku guulaysana marka khayr baanu ku gaarno xoolaha maxaa ka macnaa soo ciise ma aaminsanid ciise ma uu dhibayaa ciise waa nabiye waa kida ciise waa nabi ilaahay oo xaq ah laakiin waxa masiixiye aaminsantay ciise ma ahan yani ninka aaminsan diintaasan haysana waa gaal allah ma uu laqad kafara alladina qaaluu ina allah thalithu thalatha وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفضل الله سد يعني إله وسدح إله متك من الدك اللي قالوا الله هو معبود حتى أو كليئة هذا يوحى كهروايا أي كل واغيا عذاب أليم أو جرك اللحويات صابانيا عذاب أليم أو جرك اللحويات صابانيا انت مسيحية دور ديتا هي انت تاجرسن هي انت الدين الان تأسعطا هي انت حكمك الديمقراطية دونيتا هي انت الدورة أسعبينيتا هي انت حسبية للدندونيتا هي انت حسبية لبنا العكسة كبحينيتا هي ان الله انت ذكا صوت دورانيتا كل قولوا كريستان ان الهي ابتيسا وحبا وقولين وانا كفار حدو الله وانا دبيري كتابك على كونك وحبتك معهن وانا كنت فولي وحنا كسف وودتك ما أنت جوجا آيات الله يقول يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل إلهي الدين كيسا وحبتك ما يجيب أهل الكتاب لغويره حتى تقيموا التوراة والإنجيل إلى التوراة والإنجيل كده يهيلوا توسينيتان الآن كيسا وحبتك ما أنين حتى أن نقيموا كتاب الله إلى أن كتاب كان الله سيدة أو يقول توسينينه أنا دين الدين ولا تتفرقوا دين سألين توسينان وغير وقتها وقتها قال أنت أن نكوك لا تجين بها الدين لا يديك كده كسر ربنا نقوله سبحانه وتعالى وحاك أيانا الله فاتنا يا إذا على يهود وإذا على القرآن كالنوعة ذكا نبو ويدله كان إذا على يهود با إسكاله دقاء أدوك يهود با قعنت كوهيسا ونوبتا ويعني تعليمت أدوك يهود با قعنت كوهيسا يعني وكالة تعليمته وان المهن أدهنه أما إسكولة يونيسكا وحيكو غرين مجلدة يعني وحاويا مركز جلاسكة